720 sano kadib dowladda Soomaaliya ayaa xilligan wada dadaalo dib loogu soo celinayo shirkadda duulimaadyada ee Somali Airlines oo muddo badan ka shaqeyn gudaha Soomaaliya kulan wada tashi oo arrimahaasi looga hadlayay isla markaana uu soo qaban qaabiyay wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista iyo hawada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho kulankan wada tashiga ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaadiidka duulista iyo hawada iyo marti sharaf lagu casuumay kulankaasi wasiirka duulista iyo hawada Maxamed Cabdullaahi Omar oo daahfuray kulankan wada tashiga ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda Soomaaliya u leedahay shirkadda Somali Airlines ujeedada shirkani marka waxay tahay midda koowaad isbarasho soo dhaweyn iyo in anigoo matalay dawladda aan idin sheego ahmiyadda dawladda u leedahay iyo Somali Airlines ahmiyadda ay dawladda u leedahay iyo in dawladdu ay serious ka tahay dib u soo celinta Somali Airlines marka ugu horreysay inaan inta idin la share gareeyo marka labaad Somali Airlines ma soo noqon karto la'aantiin dadkii aqoonta u lahaa waa idinka dadkii ka soo shaqeeyay waa idinka dadkii ay ka burburtay Soomaaliya oo dilba ay ka burburtay laakiin idinka ay saameynta ugu weyn idinku yeelatay qaar ka mid ah shaqaalihii hore ee shirkadda Somali Airlines oo meesha ka hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in dawladda Soomaaliya dib u soo celiso Somali Airlines waxayna wasiirka duulista iyo hawada ka dalbadeen in dadaal badan la geliyo sidii dib loogu soo celin lahaa shirkadda Somali Airlines waxaad moodaa dadaalkii la rabay khusuusan xagga dawladda yaanu anagu haddaanu nahay shaqaalihii soo eegayna inaanay maanta ka hor la iman way ku ammaanantay maanta dawladdu haddayna hor keentay taladii Somali Airlines leedahay ka taliya waxaan marka rabnaa haddii laga helo dawladda waxaan ka rabnaa kaliya kaabayaasha mas'uuliyadda dawladeed inay u yeelato laakiin inay diyaaradan heli karto aqoon heli karto duuliyan heli karto ayaan ka rajaynaynaa marka jaala wasiir aan waxaan ka codsanayaa Somali Airlines maanta inta la isugu keentay keliyada ma ahan taariikhdeeduna kuma koobno waxaan aad iyo aad kaaga codsanayaa airline-yada u mareynaya inay garoonkuba ay maranayso oo basijeer la waayayo haday Somali Airlines timaado waan imaanaynaa waadna soo celinaysaa waan ka shaqeynaa ugu dambeyntii kulanka ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka duulista iyo hawada Cali Gacal isagoona sheegay in xilligan dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaadiidka ee xil weyn iska saari doonto sidii guryaha Somali Airlines ku lahaan jirtay magaalada Muqdisho dadka haysta looga saari lahaa maadaama uu tilmaamay aan wax qarash ay ka qaadaynin dawladda Soomaaliya shirkaddan ay u baahan tahay sida uu sheegay guryaha Somali Airlines ay ku leedahay xamar ee maanta lagu nacfinayo ee dad bareybadu ay ku raaxaysanayaan oo aan wax charges ama wax kira laga qaadin suuragal ma marka mudan wasiir dawlad idinkoo la kaashanaysiin madaxda qaranka aniga waxaan qabaa koow horta in hantidaas wasaaraddu ay gacanta ku dhigto lala wareego koow laga bilaabo Somali Airlines horta raasumaalka ay lahayd in laga bilaabo Libaan Ali Guleed shabakada caalamiga ee Gada Times magaalada Muqdisho.